الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إلهي عبسيدي سان إدين دردار ميا إيا شرعي سيناد إلى لسان حيل الليبان توالكاس يكون شرطاء الدنيا أخربا وحان إدين كدق يا إلهي تبارك وتعالى إن العاصدان شرعي خلافتان أمر كيس الشبيسان حيل الدنيا أخربا خساروه هالكاسو كجرا انت كذب waxaan jecelahay inaan dul istaagno laba dhacdo oo usbuucan ina dhaafay ka dhacday dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa kamida ee dhulka ka dhacay. mid hore waxay ku saabsan tahay deegaamadeenna, waana dhacdada ka dhacday magaalada Laascaanood iyo dagaalka ka socda. dagaalkaasi waxaan leenahay waa inuu istaago, waa in la joojiyo, waa in la wada hadlo, waa in la wada fadhiisto, waa in si degdega uu istaago, waa in dhiigga daadanaya iyo hantida burburaysa iyo dadka qaxaya la joojiyo. maslaxa kuma jirto 30 sano kadib oo dalka ay dagaal la sokeeyo burburiyeen oo caqli iyo waay aragnimo ay kordhi lahayd in maanta dagaal lagu noqday wax maslaxa kuma jirto. duruustii ina soo martay inaynu wax ku qaadan weynana waa caqli xumo inteeda leeg. dagaal wax ma dhalo, faa'iidana ma laha markuu dad muslimiina u dhaxeeyo. marka hore waa isu ka qurxinaya inaad faa'iido ku gaadhayso iska tusaya, shaytaan baa ku muujinaya, laakiin akhiran marka ugu dambaysa ceeb iyo dhooba ayaa dhex fadhiisani, natiijana ka gaadhi maysid. midhaheedana waynu haynaa. iyadoo ay sidaa tahay oo waajib tahay in islaax iyo nabad dhulka lagu soo dabaalo, dagaaladuna istaagaan, ayay haddana waxaa laga maarmaan ah oo ina arrintaasi diidaynin inaan caddayno sida saxda ah iyo khalad ka dhacay iyo maxaa habboonaa. magaalada muddo fatra waxaa ka jiray nabadgelyo xumo, waxaa ka jiray dilal qorshaysan oo hadafkeedu u ahaa lagu beegsanayay bulshada labeenteeda, haldoorkeeda, ganacsatadeeda, culimadeeda, odayaasheeda, waxgaradkeeda. ka duwan deegaamada kale ee xukuumadda Soomaaliland ay ka taliso oo muddadii 30 sano ahayd nabad iyo horumar iyo barwaaqo iyo wax Ilaahay lagu mahadiyo laguna farxo ku sugnaa. aad iyo aadna ay tahay in loo ilaaliyo loona hormariyo, iyadoo deegaamada kale Soomaalida intooda badan qaraxyo iyo nabadgelyo xumo iyo dhibaatooyin iyo muwaajahaad ka jireen. haddana muddadaasi deegaamadaasi inay nabad iyo horumar iyo istiqraar ay ku noolaayeen waa wax lagu farxo, ayna tahay in la sii xoojiyo oo aan dhaawac loo geysan. laakiin waxaa ka duwanayd magaalada Laascaanood. dilalka dhacaya muddada soo socday, mas-uuliyaddeeda waxaa iska lahaa inay ama meel ku sheegto ama soo afjarto xukuumaddii meesha ka talinaysa. yaa samaynaya, yaa dadka laynaya, yaa dadka iqtiyaalaya. maxaa ka duway magaaladan magaalooyinka kale? waa su'aal isweydiin loo jawaab uga baahan xukuumadda. xukuumaddu waa ku fashilantay inay arrintaa iyo malafka iyo faylka inay xalliso. waana wax iska cad, cid walbana isweydiinayso, nin walba maxaa dhacay, see wax u jiraan. qodobkaasi waa qodob muhiim ah. qodobka labaad ee mudan in la tilmaamo wuxuu yahay dadkii deegaanku markay u adkaysan waayeen oo sabri waayeen
oo ka kacdoomeen oo mudaaharaad ka kiciyeen oo arrintii ka gadoodeen jawaabta la bixiyay ee xukuumaddu bixisay ma habboonayn inay noqoto dadka in xabad lagu rido la laayo ma ahayn jid kaloo wax lagu haliyaa la heli karay saxna ma ahayn dad aan hubaysnayn oo mudaaharaadaya oo qayliyaya oo xaq raadinaya in xabad la dhacay ninna garowsho ku heli maayo iyaduna sax ma ahayn mowqif sax ma ahayn gartu allay leedahay gari allay leedahay midda saddexaad waxay ahayd markay odayaashoodii iyo khiyaartoodii intay isu yimaadeen ay tashadeen go'aan ayagu ay maslaxa bideenna ku dhawaaqeen oo aynay Soomaali weyntaasi qayb ka ahaadaan ayadana ma ahayn jawaabta la bixin lahay mana munaasib kuma ahayn in dagaal lagu qaado madaafiic lagu garaaco sax ma ahayn meel kaloo la mariyo jid kaloo looga wareegaa la heli karay kullu dalika waa khaladaad isfuulay oo tahay in la cadeeyo anoo og Soomaaliga maanta joogay akhrintiisa iyo daraasadiisa iyo fahamkiisa iyo miisaankiisu inuu qabiyaalad yahay oo in badan ay dhihi doonaan wadaadka waxa ka hadlinaya waa qabiyaalad iyo dhalasho anoo og ayaan haddana aan dan ka lahayn xaqa inuu cadaadiyo sawaabka muhiim haba kharaadado laakiin waxa kugu soo gaadhay cay aflagaadiya faham xumo ninkeeday u taalaa laakiin xaqiiqada in la cadeeyo waa laga maarmaan kullu dalika waxa mas'uul ka shacabka dawladda u talisay mas'uuliyadeeda way ayada laga rabaa shacabka amnigiisa inay ilaaliso iyada laga rabaa istiqraarka inay ka shaqeyso ayada laga rabaa wixii dib ku soo kordho dadka inay iyadu xalliso iyada laga rabaa mashaakishani intaynan isqalin inay wax ka qabato mas'uuliyad dawladeed waay waxaan ma yimaadeen hadii ay hore wax loo xallin lahaa ayadoo taasi jirto ayaa haddana waxaan leeyahay xal ma aha dagaalku ninku faa'iidayna ma jiro waa in la joojiyo maslaxadana loo soo noqdo wada hadal loo soo laabto ummaddu wada fadhiisato dhiigga la daadinayo la joojiyo magaalooyinka la garaacayo la joojiyo dadka qaxaya la joojiyo dhibaatadan socota in ay istaagto way xataa haday labada dhinac midkood uu isgar siinayo ama gar leeyahay ma keenayso in muslimiinta dhiigooda la daadiyo bal sida fiicani waxa way in maslaxa looga wareego waay